koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waa ciid iyo maalin caane kuwada ciida caafimaadsan war sagaalaadka waa la soomayahay waa waalantahay ciiddu waa 10ka war in banka Carafa la taagan yahay oo barita la qalayo xoolihii miyaan ogeyn war banka Carafa kuwa musuqmaasuq lagu eedeeyay oo xamar ka tagay ayaa taagan maanta war kuwaasba waxay qaadayaan labayk Allahu ba labayk la shariika lak labayk maantidii ummadda Soomaaliyeed ku xajinayaan baytka Ilaahay la taagan yihiin war ma haysaane xajka sanadkan xataa daahir calso waa tagay oo live ka soo galay isagoo xajki joogo laba qaydo cad xiran madaxana iska xiray war xaaji daahir calso hadda kadib waxaan u malaynayaa ummaddu waa ka nasanaysaa dulmi iyo been dambe ma qorayo mar hadduu xajiyo baytka Ilaahay oo barakaysnaa tagay war waxaas xirfad shaqo way war adeer gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ayaaba jooga xaram xisbi kasto ka soo horjeeda waxbuu ka sheegay hadduu xitaa xaramka joogo oo muxuu xajka ka doonaa haddana laga nabadgelin walaaladaa wax qabanaan lagu wareerinine General Bashir Goobe garaadkii rabisiye garaadihii u xiraaba xilkooda waa gudaya qalab xafiiseed warshada ciidanka asluubta maxaabiistu ku samaysay ayuu ku wareejiyay golaha murtida iyo wacyigelinta Soomaaliyeed war qalabka aad sheegayso madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka dalabtay wuxuuna ku wareejiyay wasiirka warfaafinta Cabdinuur war wasiirka waa la jeclaatay Cabdinuur waa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada war Cabdinuur wasiir waa istaahila maxaad ugu diidaysaa hadii laga dhigo law musabixi hadduu wasiirka dhigo war istaahila shankaroon haweenka shib waxaan idhaahdaba mar baan kugu shukriyayaa war professor dalca ha uga dheelin heesta codka ma leeyahay caloosha ku wareegtay war habaarabin heesta maxaan u qaaday ma taqaana General Bashir Goobe iyo maxaabiista xabsigu waxay jiif iyo saalooto iyo fadhi la yaab leh u sameeyeen professorka xildhibaanka dalxa war waa tageen hadday talxa sariir u sameeyeen ee warkaysi war waliba kaligiis maaha talxo aroosa loo sameeyay alloona marka General Bashir hagara ku jirtay waxa Soomaaliya u baahantoo dhan waa sameey karaa war ma hayside talxa sariirtu bil ku socdo waa bedel jiraa leeyahay war maxaabiishiinaysa ama ay ku xiran meesha ma ya Arsenal ku xiran war niman yahow waxaan maqli jiray xisaabi xil male hadaan la xumayn wasiiradii ayaantan qurbaa haysa midba mar ayaa khayr waxa uu leeyahay halkan soo fariiso waxaan la weydiinayaa maxaad qabatay maxaad biiratay yaa kula shaqeeya inta safar gashay maxaa hadda haysaa dukumentiyadii aaway maxaad soo saartay qaranka maxaad tartay warnamay anu maanta laga bilaabo ra'iisul wasaare khayr waa taageersana sababtoo ah goorma noogu dambaysay wasiir baqaya oo in lala xisaabtamo iyo mas'uuliyad iyo dabagal ka baqaya goorma noogu dambaysay koox iscaayada maamulo jirtay dalka wareeda taageerada laga bariyo maaye waxaan ku weydiinayaa dhalinyarada Facebook wax ku qorta ee nabad iyo nolol xisaabtanka qayb ma ka yihiin war qaarka dibadda ku maqan live ay soo galaan war waxa la xisaabtanka loogu yeeray waa safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Suudaan shaqaalaheeda iyo madaxdeeda ra'iisul wasaaruhu markuu maalin dhaw Suudaan tagay ayaana waxa la yiri ardaydii iyo dhaawacyadii soobe ayaa ka dacwooday hadda soo socdaa la yiri macal isbasiini ma hari karaa la yiri soo bax war adeero war ma haysaade annaga ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ka soo jeeda annagu lama xisaabtanay yaa la xisaabtamaya war macna Soomaaliland khayra ka wakiila naw oo carruurteeni masaasi ku caana weyday war nin walba ninkii uu ka adeegay waxa gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanadu yiri si degdeg ah loo imaado ka imaana kursigiisa nin kala diyaar ah u fadhiisana yiri war kal fadhiga afraad marka la furayo 10ka bisha 9aad xildhibaankii ka baxdo imaan waaya booskiisa in la buuxiyaa waajib weey adeer war xildhibaanada arooska ku jiro ma fasax qaadanayaan war gaafo walaalkiis markuu aroosayay waa uu iscasilay General Gaafo ayaana buuxinaya war adeero mid Soomaaliland ka soo jeedo ima waayay ma la igu bedel aniga war dagaalkii Puntland ku baaqday Soomaaliland waa ka jawaabtay
waxay yidhaahdeen dagaal diyaar baan u nahay tukarraqna waa somalilan waanu somalilan war mahay sidii xuduuddeeday u socotaa kalaha kan maysaba boowe dhulka innagaa leh ingiriisna kuma sii karo warniyo ilmalaan goormay socdaan dagaal kama daro oo gaalkacya iska dhaaftay miyay weli joogaan iyagu war dariskaaga ama ku dayo ama ku diinsoo lama dhihin war dagaalkii u tagay jarnaal canood gobolka shabeellaha hoose markuu soo afjaro soo laabanaa la yidhi war ma haysade madaxweynuhu afgooyuu degi rabaaha la yidhi war gaashaandhigii ma afgooy loo raray war afgooye baxaaraa jooga webiga la gala dadkee madaxweynaha ayaan la geynin war baxaaradu buunka dowladnimada ayay tumaan war waxa laga badiyey waa Manchester United oo shalay 3-1 looga badiyey way aqbaaq meesha ku haysin war adeer Muuse Biixi baxaar ma ahay yan karkaaga siinoon daan iyo barku jabinine nagaam war dhiiridii Erdogan iyo dhaandhaankii Donald Trump oo dhibka keenay daraad dheeshoodii xagee gaartay war heesu sidaas ma ahayn ha ku dheelinayo arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahayna siiyay isaga ku abaale abeesa fuura ku gashaaf Soomaaliga ma taqaanid war way ahaatay maanta ee si wanaagsan u ciida ayaa heestu ahayd war waxa laga badiyey waa Manchester war waa Manchester City waxa badiyey 6 iyo barta ku badiyey waraanimo waaweyn aan xishoonayna tiini maanta wixii ka dambeeyay adinku ciyaar iyo banooni ka sheekayna geedkaas uu keenay ma dhihi karti waryaa war qaar